بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله، نبي الرحمة ورسول الهداية، سيد ولد آدم، صاحب مقام المحمود، صلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله وصحابته الأخيار الأبرار الأتقياء الأطهار، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بن أمهد علينا مركوه الرئيسة أولا وآخرا با إلهي سبحانه وتعالى إن السيئي وحاين كنا الله على فصنين وأفري الله باتنك ساعدوت النعم وحا إلهي قرآن كريم ككله هاي وما بكم من نعمة فمن الله وحاذا ستان والنعمة إلهي حقي بيدين كتمي سبحانه وتعالى عدكالي والنعمة ذا إذن سيسي مجرته وحاد كنوا شهين والنعمة إلهي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله ومفرد مضاف لغة العربية وحا لغو يقانا مفرد كوادو مضاف هنا عموم بفائدية نعموينك إلهي هدي آد سقود ضيدان إنا تريسان مكوبي كرتان با إلهي لي سبحانه وتعالى. وإن تشكروا يرضه لكم هدا إلهي أشكرسان غالبوا إذن كنقون إياه. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إلهي سبحانه وتعالى وحقود آرنا يا هدي آد مهد نقدان وشكرسان وحان إذن سيي آد كل قنتهين dad iyo dunyo iyo diin iyo deegaanba aad ku nooshihiin oo nicmo ah haddaa ka mahad celisaan waan idin kordhinaya. haddii aad laakiin ka mahadnaqi weydaanoo qof mu'minoo miyir qaba aad noqon weydo oo xumaadu u jeesatana cadaabkaygu waa adag yahay ee ogow iskama celin kartid baa ilaahay ku tilmaamaya. waxaa ilaahay quraankiisa ku sheegay dadka ilaahay inta u mahad celinaysa nicmada uu siiyey inay aad u yaryihiin. waqaliilun min cibaadiya ashakuur. addoommahayga in yar baa ii mahad celisa baa ilaahay subxaanahu watacaala. nebigu calayhi salaatu wasalaam labada gelin ducadii u akhrin jiray sayidul-istigfaar waxaa ka mida abuu'u laka binicmatika calaya. ilaahow waxaan kuu qirayaa nicmada aad iigu nicmaysay baan kuu qirayaa. marka qofku gelin hor iyo gelin dambe 100 jeer buu oran jiray subxaana allahi wabixamdih subxaana allahi wabixamdih 100 jeer buu dhihi jiray. waxaa ka mid ah allahuma jcalnii laka shakaaran laka dakaaran laka rahaaban ilayka mukhbitan muniiba. inuu nebigu oran jiray sal alay wasalam ilaahayow waxaad iga dhigtaa addoon aad ku mahadnaqa aad kuu xusa aad kuugu noqosho badan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh. micnaha meesha ku jira ee laga dhadhansanaya waxa weeye alle subxaanahu wa tacaala nicamta uu gacanta ku hayo isagaa wuxuu gacanta ku hayo. adduunkan waxa aad doonayso adigu qof yahow bini aadamka ah in lagu siiyo waxa aadna jeceshahay isla markaa waxa aad neceb tahay adduunkan iyo aakhiraba in lagaa badbaadiyo aad jeceshahay kuna dhibayso inay ku gaadhaan ilaahay gacantiisa ku jiraan subxaanahu wa tacaala. cidda waxaad doonaysana ku siin kara if iyo aakhiro waa isaga. waxa aad ka baqayso ama diidayso if iyo aakhiro cidda kaa celin kartana waa isaga. su-aal baa meesha iman karta marka ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantiisa waxaa ku jira see looga heli karaa. xoogna loogama qaadi karo, xeelad iyo khiyaamana ugama qaadi kartid. waxaad uga qaadi kartaa taaco iyo addoonnimo sax ah iyo cibaado iyo camal saalixa baad ku helaysaa. marka alle subxaanahu wa tacaala adduunkan markuu ina keenayey waa marka koowaade ina kalama tashan oo ina kuma jiro qof la yidhi ilaahay uu la hadloo yidhi waa ku keenayaaye ka waran wax ka tala bixi miyuu ina ku jiraa? jawaabtu waa may. waxaa kale oo ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunka markuu ina keenayey inama ogeysiin. ina kuma jiro qof ina ka mid ah oo ilaahay uu yiri adduun baan ku geynayaa ogow intaan ku abuuro
adduunkii baa lagu keenay lagumana ogeysiin lagaalamana tashan waa lagu keenay adduunkii markii lagu keenay waxbaa ka muuqanaya adduunka guri diyaarsan baa lagu keenay samadiisii waa dhisan tahay dhulkiisii waa dhisan yahay dhirtiisii waa joogtaa aqaladii gawaaridii badihii biyihii geedihii berrigii xoolihii waa la joogaa buurihii waxa dhan waa yaalaan beerihii qur'aanka u fiirso kitaabka iyo sunnaha waxaan kuu muuqanaya adduunka arki maysid ina albuyuuta waalashjaara kada kada uciddat lijannaati naciim weli ma aragteen guryaha dhirta dhagaxyada webiyada beeraha jannaan u diyaariyey ama waa cadaabayaa weli qur-aanka ma ku aragteen iyo sunnaha waa maya waxaa meesha kaaga soo baxaya janno iyo naar cidda loo samaystay waa adiga bani aadamka iyo jinka weey cid kale looma samaysan jannadan aad maqlayso iyo naartan aad maqlayso aqaladan iyo dhirtan iyo gawaaridan iyo guryahan iyo baabuurtan iyo beerahan iyo fooqyadan looma samaysan ciddan ku dhex jirtaa loo samaystay janno iyo naar sidaa awgeed ba adduunka markaad joogtid wax badan oo waxaad fahmaysaa noloshan rasmi inaanay ahayn wax badan oo aad jeceshahay adduunka inaad hesho ama lagu siiyo way adkaanaysaa ma heli kartid wax badan oo adduunka aad neceb tahay inay kugu dhacaan ama ay kula soo gudboonaadaanna iskama celin kartid adoo neceb bay kugu dhacayaan mithaalu dalik waxaad jeceshahay adduunka weligaa dhalinyaro inaad ahaato ma helaysaa wayaa jeclaatid ma helaysid waxaad jeceshahay weligaa inaadan xanuunsan oo caafimaad qabtid aad jeclaatid waa sax jeclow ma helaysaa laakiin jawaabtu waa maya waxaad jeceshahay weligaa inaadan cabsi arkin waa sax aad jeclaatid laakiin ma helaysaa waa maya waxaad jeceshahay adduunka nicmo inaad ku noolaatid oo afarta jeeb lacag kaaga buuxdo oo aadan baahan weligaa oo dhiragsanaatid oo daacsatid baa rabtaa ma helaysaa waa jeclaatid ma helaysid adduunkii waxaad necab tahay gabow iyo ciro iyo duqnimo weligaaba la dagaalan oo bootar iyo baxismarmari oo timaha madoobey oo is adkeeyo dhexda geejiso oo kaba buudha qaado oo kii gabow on baa tahay iskama celin kartid waxaad necab tahay adduunka inaad jiratid aad necbaatida jirada ma iska celin kartaa waa xanuunsanaysaa meeshan aqalada la dhistay jaamacadaha laga soo baxay dhakhaatiir wey waxaas dad baa loo dhistay waxaa adduunka necab tahay inaad dhimato aad necbaati dhimasho ma iska celin kartaa waa maya waqiila maraaq wadanna annahu alfiraaq waltafat isaaqu bisaaq dadkoo dhan hadday isugu kaa yimaadaan odayga islaantiisii isku wacnaa oo aad isu jeclaabaa odaygii sakaraadkii qabtay markaas war hebelow xaggaad nooga tegaysaa miyaan idinka tegaya waa lay wataa buu yidhi waa lay wataaye miyaan idinka tegaya waa ujeedaan waa socdaa akhraan u socdaaye geeri aad necbaatid si walba u necbow laakiin ma iska celin kartaa waa maya meesha maxaa kaaga soo baxay marka gurigan aad joogtid ee aad ku nooshahay ee aad reeraha ku samaysatay ee caruuraha ku dhalayso ee aad ka shaqaysanayso ee ku cibaadaysanayso ee wax ka baranayso ma aha guri nolol rasmiga loogu talagalay noloshan nolol baa ka dambaysa wamaa khalaqna asamaa waalarda wamaa baynahumaa laacibiin ma ujeedaa ciyaar ciyaar ma abuurin samadan arkaysid xalay roob baa hadda inahay caaw roob ma jiro qorax baa jirta cirkan iyo dhulkan iyo waxa ku dhex jira ciyaar ciyaar uma abuurin ma khalaqnaahumaa illa bilxaq xaq baa u abuuray ilaahay subxaanahu watacaala laakiin ciyaar ciyaar in loo abuuriyaa u maleeyey dalika dhannu aladiina kafaruu kuwii gaaloobay saa u qaba gaaladan adduunka aad aragteen ee micnaha badan aan lahayn ee qof waliba isleeyahay ilaahu yaa ku gaadhsiiyey horumarkooda xidigaha nimankaa maraya cirka siraatay nin walba tiigsu isleeyahay waa nimankaa garanaysaanoo sharaabkooda iyo shaahooda waa khamri cuntadooda waa doofaar xaragadooda waa qaawanaansho wehelkooda waa ay jahannamana geedi bay ku yihiin waa sii socdaan dadkaa jahannamo baabuurtoodii awrtooda isku xiriiriyey ee gurigaa jahannamo u sexo bi'sal masiir alla u socda ba annagana saan ku gaari lahayn maama dhoweedo ninkan waalanee hadda xaggan jooga waddanka qabsadee uu yidhi waa mamnuucay wixii soo geli lahaa dadka baroorta ka dhacaysa qaarkood waad yaabaysaa maxaa dhacay oo qaar waxaan arkayay social mediahan ku arkayay barooranaya oo hinda ka dhacaysa maxaa dhacay ninkan waalan baad diiday meeshan aan aadno
موجودة مركا ولي وحيلتها هي آد من دين الله فهمين معناها موضوع أنا دورته وحويان قفكو رقائق القلوب دينتا أقويها كيد وين كبدنيه معاهد جامعات كوالا دكتها ضدكو سفي عنبو صحوة ولا السعودة لكن واحد مودا هذا نحر كبا مقن تدين كي ماشي ومقنيه واجي ورا مكان اللي سجودو شابك عضي أذكار بكسو دعي تري هذا كالكوليتر موبل بكسو بودي شابك حق أدونك الله يربط ضدك تدين كبا ير دينتي كو دقن كيدي أخلاقيات كيدي آداب كيدي سلوك كيدي دقن كيدي ويريه أقونتون وابدنتهاي marka bal in dadka ruuxaaniyaadka nafta laga la hadlo oo tarbiyada laga la hadlo oo ruuxda laga dhiso oo qofku tarqiib imaartay looga sheekeeyo aad bay u fiicantay waa tarbiyo darsigii markuu qaato uu tagayaa isagoo aqalkiisii buu qabanayaa islaantii caruurtii buu gaarsiinayaa waayo ruuxdii baa soo dawowday qalbiga meelaha lagu culoobay ka mid tahay sida awgeed ikhwaani wa izaa'i fillah waxyaabaha ina haysteed arkaysaa abaaraha iyo colaadaha iyo mashaakilka iyo sicir bararka iyo wareerkan jira wax kale maaha waa dambiga ilaahay ka galeen subhanahu wa ta'ala wa macaasida iyo dunuubta aan ilaahay ka galeen subhanahu wa ta'ala wuxuu oran jiray Ali ibn Abi Talib ma nazala bala'un illa bi dhanbin wa ma rufi'a illa bi tawbah balaaya soo ma degto haday balaaya timaado ama dadka ama dunyada ama deegaanka ku dhacdo waa dambi la galay إلهي بن آدم ما ظلميه دم بلايدا أنا ضدك لقى ما ضل قاضو إن إلهي أصلا نقدان موياني سبحانه وتعالى سيدا أوجد با إن حالة أدق بالو وضعي إنه كتيرها أمضا ما كان إنك ما عشية كالصوماليات ولا وأمد كديدن بانه ودبنه وكديدنه إلهي إنما كديدين أنا جس كديدني إلهي إنما كديدين سبحانه وتعالى وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إلهي عندنا ما ظلمي وعادل إننا نفتيني ظلمني إلهي كفغاني وعاصني مؤي حمان بطن كدعني سيدا أوجد قرآن كمركات في ريسي أمده إلهي دبر قوية هلاقي أمد ولي بوحى الله قد وقلي ودنبي أي قيستي فكلا أخذنا بذنبه مدول بدنبي أقلي بانو كقبا نبا إلهي الله سبحانه وتعالى فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وحاكم إذا مد آنو الصمد سيدا الروب كدحان كقسو سيديني كقوم عاد أيا كمد ومنهم من أخذته الصيحة مد انتلقوا قيلي قلبي قد اللاعي كقوم ثمود وكلم أيا كمد ومنهم من خسفنا به الأرض وحاكم إذا مد آنو الكلقوا إني قبقي سيبا قارون يوحي اللمد إلا قارون منك بهيبو أها يمعان كرا هذا وحي الله مدهبا ومنهم من أغرقنا وحاكم إذا مدان بيو كما شينيو بيكوها في الني سيدا فرعون يقوم اللوط يقول يا بدن بيا لغرغي وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون انت أمرك إلهي كسو شيكي مد دقح لقو دلي مد قيلا لقو دلي مد دول كلا لقوي مد بيا لقو بابع شيء با إلهي وحو ليهي إلهي مد من سبحانه وتعالى لكن إياقا وحن إسوكيستي markii la yiri war jooga oo muuminiin miyir qaba noqda adduunka ilaahay si qumaatay ugu caabuda aakhira sagiya iimaan laanta iska daayo alla iyo rasuulkiisa raaca ay diideen maxaa ka dambeeyay waxa ka dambeeyay maxaan ku iraahdaa khasaare inay galeen sooma inay khasaare galeen ba ka dambeeyay sida awgeed ba quraanka markaad u fiirsato mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara dhibaatooyinka ummadda haysta wama asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kathiir bini aadamku marka inay fahmaan waa shay muhim ah sidaa awgeed inaan ka hadallaan jecel lahay waxyaabo abwaabta khayraadka ah si khayrku inuu ku bato qofku uu meel uga qabsado iyo waxyaabaha mukafiraadka ah ilaahay dambiga ku dhaafay subhanahu wa ta'ala innal hasanati yudhibna sayyi'at dhalika dhikra lidhakirin bu ilaahay subhanahu wa ta'ala waxyaabaha hasanaadka wanaageeda umadu ay sameynayaan waxyaabaha xumaha sayyi'aadka ilaahay ku kaxeeya subhanahu wa ta'ala fadligiisa iyo naxariistiisa ibn kathir ayda markuu fasiray wuxuu leeyahay inna fi'la alkhayrati yukaffiru adh-dhunub as-salifa
wanaaga samayntiisa ilaahay wuxuu ku dhaafaa dembiyadii hore ee qofka ka tegey sidaa awgeed ba rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayhi aayaddaas waxay sabab nasuulkeeda culimmadu sheegeen ninbaa qof dumar ah oo wax ka iibsanayso dukaan haystay ayay wax weydiisay markaasuu ku yidhi kaale xaggan ka eeg xagga markay usoo jalleecdayna dhunkashuu dhag ku siiyey markuu yaro dhunkaday bay dib u booday islaantii odaygeeduna waa maqnaayo jihaadkii halkaas ku maqnaa ninkii saxaabiga inuu meel ka dhacay buu iskartay rasuulku u tegey khalad weyn baa iga dhacay rasuulka ilaahayow salawaatullahi wasalaamu calayh ummadda ruuxdeeda iyo adduunkeeda iyo diinteedaba rasuulku dawo u ahaa salawaatullahi wasalaamu calayh rasuulku u tegey salawaatullahi wasalaamu calayhi arrintiibuu uga warramay markaasaa nebigu sal allahu alayh wasalam aayaddan baa kusoo degtay aqimi salaata طarafay alleyli طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين أيضا بقصو دكتي إن صلوات كشنطة مساجد اللي قلت كان وناقي حسنات كي خيرات كالله صمين مكفرات إني هنا إلهي ذنوب أو كدافه سبحانه وتعالى مركاسا سحابي إنتو فرحي أو كالبطي أي وحو يري إلي هذه يا رسول الله أيضا أنا كلي قلت يا صوما رسولك إلهي مايا النبي صلى الله عليه وسلم مايا قال لمن عمل بها من أمتي أمتي إذا قفك كم إذا كعمل فلا تابعني إذا ما إسلاما أنت الله يسكرون كذا أن لقبين ألا تكذو من عيد ساما هدي وحلقت إذا قفك وحكد عان اللي هو لقفة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون حتى قفوا وخلطم يا بني آدم ويبقولك بقول ما هاني سيد الموت هذه سددوا وقاربوا النبي صلى الله عليه وسلم قف ميل بي وجوغتا marka hadii wax ka dhacaan toobad keen Allah soo noqo micno waa inka soo jeeda النبي صلى الله عليه وسلم عليه حديث سعد القدسي والشيخ الباني صحيح الجامع الصغير ku keenayo 2406 raqamkiisu yahay ayaa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay man alima anni dhu qudratin ala maghfirah qofka ogaada anigu inaan awood u leeyahay inaan adoomahayga saamaxo oo dambigooda dhaafo qofka arrinka ogaada oo aamin oo aqeedaysta dunuubtooda dhaafayo ghafartu lah wa dambi dhaafaya wala ubali ma lam yushrik bi shay'a ومن أبيلي دمبي كستها كدعو هدانو شركي سمينين هذا شركي سميه بمعنى شركي كدنتو حالة سوى خطر سوما وما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة شركة هذا كدنتو حرمتو خطر ويان خطر عظيم ويان سيدا وقد مركا ولا ليال قفكم وحكد عان معصوم معها والمعصوم من عصمه الله إلهي قفكم دورها دور سن لكن قفكم حبا كدعي انت وقفينا ودنبابينا سيدا وقد مركا إن بالمكفرات الذنوب إيو قفوا وحيابا أجور إيو إنو الشقة يستوى في عنت يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم إلى آخر الآيات إن قفكم مركا ربي يقول نقضي سبحانه وتعالى وأرمها مهم كائن ست المامين وأيو وحين سيدا أولى إنهاي قف والبو مسلم وأن شركي كل من ujeedadiisii hadafkiisu waxa weeye adduunyadan inuu ka anbabaxo in maalin baa laga kaxayn doonaaye inuu qofku ka anbabaxo isagoo ilaahay dambigiisiina dhaafay ajar badanna ilaahay ka rajeynaya subxaanahu wa tacaala nolosha qiimaheedu intaasuu ku jiraa sidaa awgeed waxaan jeclay marka inaan tilmaamo dhowr iyo 40 xadiis oo isugu jira abwaabta khayraadka iyo mukafiraatu dhunuub oo nabiga ka sugan salawaatullaahi wasalaamu calayh وعكمد الباب خير كتوبة كمد توبة أيا كمد أدونك إنه ربي أتوبة كينه والنبي صلى الله عليه وسلم وحورنش يا أيها الناس إني أتوب إلى الله في اليوم الله توبة كينا أنا أقول مالنتي إلهي وحنو توبة كينا إنك بدن بقول شر تضوات شر إنك بدن إلى بقول شر الله توبة كينا سبحانه وتعالى مركا قفكم الله توبة كينا من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه قفك الله توبت كان عد عيد يقرحض انت انا كسو بحين قبل ودع الهي وكتوبت اقبلها حديث كلا وحوا مسلم باكاسو ساري حديث كلا وحوا ان الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر الهي ادونك توبدي سواء اقبلا انت انو ادونك دون ييرين نفط انت هلكا اسوغو ايمان وقرر رق نفط مكتر هذا والسكرات كل غارو حالداسي وا حالد كبح
marka qofkii dee macaasidii xumaha ku jiray markuu caafimaadka qabay toobad keeni waay walaysat التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن موجدا marka lama ogola waxaas oo kale inta caafimaad qabtid ilaahay aad ugu toobad keen subxaanahu wa tacaala albaabka labaad waxaa ka mid ah oo dunuubta lagaga badbaadayo alkhuruuju fi talabi alcilmi qofku inuu u baxo cilmiga barashadiisa in lagu dadaalo waa shay muhim ah dadka ahlu cilmiga ay adduunka iyo aakhiro ummadda lama sinna ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala inuu qofku wax barto oo marka cilmigu baranayo naftiisana ilaahay buu uga cabsanaya waa ku caabudaya muxaramaad iyo macaasina waa kaga dhowrsoonaya diintana waa ku difaacaya ilaahayna waa ugu dhowaanaya subxaanahu wa tacaala nebigu salawatu llahi wasalaamu calayhi man salaka ariiqan wuxuu leeyay qofkii waddo qaada uu cilmi ku baranayo ilaahay wuxuu u sahlaa waddadii uu jannada ku geli lahaa waayo dee waddadii buu hayaa soo maaha marka inaad 24 saacadood saacad ka mida inaad diinta barashadeeda u qorshayso dadnimadaada iyo diintaada ku jirtaa bal xadiidka rasuulka sal ly slam wuxuu leeyay in allaha yubqidu kulla caalimin bidunya jaahilin bilaakhira ilaahay waa necab yahay qof kastoo adduunka xariif ku ah sida looga shaqaysto sida wax loogala soo baxo aad buu u yaqaanaa laakiin haddana marka diinta iyo xaggeeda iyo waxbarashada loo soo dhaqaago wuxuu ku leeyahay aniga caamaan ahay war maxaa tanna kaa indha tiray tan indhaha ku furay tan maad caamo ka noqotid shaqaynta shilinka iyo wax ka soo saarka adduunka iyo hawlaha kan maad caamo indhala ka noqotid maxaa tanna kaa indha tiray tanna indhaha kuugu furay micnaheedu marka qofku adduunkaagana ka shaqayso walaa tansa nasiibaka min addunya adduunkaaga wax ka qabso oo intaad wax qabsan karta qabso aakhiradaadana wax ka qabso oo micnaheedu yahay adduunyada bidixda ku qabo aakhiradana midigta ku qabso micnaheedu saas weeye oo markaa dadaal oo shaqayso waxbaro ilaahay caabud saaca bisaaca saacad basaacad bay u baahanta inta aad maqaaxiyaha in badan ka sheekaynayso hal saac baa kugu filan bal hal saacoo aad bishii maalin kasta 10 qaadatid bal ka waran adigu waadhow waxaad noqonaysaa muftiga Nairobi baad noqonaysaa dasaa ku wadid marka waxaa la rabaa inuu qofku marka dadaalo oo waxbarashada cilmiga ku dadaalo abwaabta khayrka waxaa ka mid ah xuska ilaahay qofku hadiyo goraal xuso rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam wal ma idin ka waramaa acmaashiina ka u khayrka badan acmaashiina kuwa u wanaagsan ee u nadiifsan alla agtii allaha boqorka agtiisa ma idin sheega acmaashiina kuwa ugu darajo sareeya ma idin sheega kuwa wax idinka khayr badan ma idin sheega inaad dahab iyo lacag bixisaan wax idinka khayr badan ma idin sheega cadowgiina in la kulantaanoo aad surka ka goysaan oo maxaan ku yiraahdaa ama iyagu idin dilaan ma idin sheega haabay saxaabadu yiraahdeen qaala dhikrullahi ta'ala wa xuska ilaahi subhanahu wa ta'ala qofku inuu ilaahi xuso adoo iska soconaya adoo fadhiya adoo taagan xuska ilaahi xukuuma subhanahu wa ta'ala ibn qayyim alayhi rahmatullah wuxuu oran jiray dhikriga iyo xuska qofku alla xusayo aqalada ilaahi malaa'iktiisu guriga uga dhisaysa haduu joojiyo dhiska aqalku waa ka joogsanaya haduu wadana aqalku waa loo dhisaya marka dhikrigu waxyaaba ugu muhiimsan buu kamid yahay qalbigu ku qaboobo xusuustu ku hagaagto xifdiga lagu helo ilaahay kugu barakeenaya subhanahu wa ta'ala waxa kamid ah abwaabta khayraadka istinaacu al-ma'ruf wa ad-dalalatu 'ala al-khayr in wanaaga la sameeyo dadkana wanaaga la tuso kullu ma'rufin sadaqa wa ma'ruf kasta iyo wax kasto wanaagsan oo aad sameeyso waa sadaqo wadallu 'ala al-khayr ka fa'ili qofka khayrka sameeya qofka khayrka qofka tusiya qof sameeyo la mid yahay ma jeeda qof sameeyay ayuu la mid yahay imaam bukhari baa soo saaray xadiiska sida awgeed xitaa walaalkaaga muslimka oo markaas ka hor timaadaan adoo ilka cadeynaya oo dhoola cadeynaya oo qoslaya aad salaantid waa sadaqad buu nabiga sallallahu alayhi wasallam tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa sadaqad bay ku tahay nabiga alayhi salatu wassalam infaaqa iyo deeqda iyo wax bixinta iyo qaraabo xiriirinta iyo wax sadaqada iyo wax bixintuna infaaqa waxay kamid tahay waxyaabaha macruufka waaweyn ee la agti Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofku helayo waxa kamida abwaabta khayrka fadlu da'wati ila Allah in dadka diinta alle loogu yeero fadliga ay leedahay qofku inuu fahmo daacigu laba u qaybsamaa mid waxa la yiraahdaa daaci ila Allah midna waxa la yiraahdaa daa'in ila nafsihi mid daaci ila Allah baa la yiraahdaayo dadka wuxuu ugu yeeraya Ilaahay dartii iyo diinta alle inay kor noqoto ujeedo kale kama laha
midna daaci ilaa nafsihi baa la yidhaahdaayo naftiisu dadka ugu yeedhaya waa sheekh ha la yidhaahdo aqoon buu yaqaanaa war ninkuu aftahansanaa war muxuu wax bartayey ha la ammaano ha la wadwado ha la bunbuuniyu isleeyahy ujeeddadiisu waa intaa maqsuud kaleba kama laha marka daaciga quman ee ilaahay yaqaan noqotid baa wanaagsan man dacaa ilaa hudan kaana lahu min alajri qofka dadka hanuunka iyo wanaagga ugu yeedha ajarka qofka u yeedhay ajarkiisa buu yeelanaya iyadoo kaa loo yeedhayna ajarkiisii aan waxba laga nuqsaaminaynin buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ma ujeedda waxay ku tusinaysaa waa nicmada islaamka iyo sicadiisa intay la eg tahay abwaabta khayrka waxaa ka mida walaalayaal ajarka alamru bilmacruuf wannahyi can almunkar in dadka wanaaggana loo sheego xumahana laga celiyo haddaan dadka xumaanta laga celin wanaaggala loo sheegin ummaddu qalbigay ka dumayaan qalbigu hadday ummaddu ka duntana adduunkooduna waa dumayaa diintooduna waa dumaysaa waa israacaysaa kala hadhi mayso in dadka marka wanaagga loo sheego xumaha laga celiyo badbaadada ummaddaa ku jirta qofkii munkar arka man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih gacantiisa haddii aan dhibaata ka imanayn waxa kaga qabto ama carabkiisa waxa kaga qabto ama qalbiga ha ka naco ayuu rasuulku leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayhi iimaanka ka ugu daciifsani kaa weeye buu nebigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid a abwaabta ajarka iyo khayrka lagu helayo in naftuna ku kobcayso qiraa'atu alqur'aani alkariim qofku inuu qur-aanka akhriyo hadda jaamicaad baa la dhiganayaa iskuullaa la dhiganayaa madaaris qur'aan baa la dhiganayaa macaahid baa la dhiganayaa waxaa laga yaabaa qofku inuu maalintii inna kalaaskuu fadhiyaa oo jaamacaddii maadiga ahayd ama tan diinigu dhiganayaa inna maxaan ku idhahdaa waxbuu xoogsanayaa qur-aankii oo akhrin lahaa ee wardiga ahaa ee joogtada ahaa maalintii inuu wax raatiba akhrista la rabay meesha waa ka baxay ilaa man raxima rabbi qofu alla u naxariistay mooyaane in qofku maalintii ugu yaraan juz qur'aana uu akhriyo ugu yaraan si aad bishii qur-aanka mar u dhammayso nebiga calayhi salatu wasalaam habeenkii la guuraysiiyey ama la dheelmiyey waxaa la tusay nin fadhiya ninna uu dul taagan yahay oo ninka taagani dhagax weyn labada gacmood saa ugu hayo oo ka fadhiya oo madaxa kaga burburinayo markuu dhagax xaggaa u dilindiloodo oo uu ninku tago dhagaxa soo qaato madaxiisii burburay waa la isku soo celinayaayo si wacan buu noqonayaa madaxiisii siduu ahaa jibriil markuu weydiiyey waa maxay arrinkan waa qofkii intuu qur'aanka bartay ka seexday aan ku cibaadaysanaynin wal fiirso salaadii ka seexday ee aan ku cibaadaysanayn qur'aankii cadaabulqabrigaasuu leeyahay in marka qofku qur'aanka wardi uu samaysto u gaar ah oo maalintii hal juz ah qur'aanka inaad akhriso xitaa hadday kugu adagtay hal fadhi inaad juz ku akhrisid isku day inaad salaadaha hortooda ama dabadooda marba qayb akhrisid si aad u dhammaysidba juzka maalintii waayo qur'aanku maalinta yowma alqiyaama iqra'u alqur'aana fainahu ya'tii yowma alqiyaama shafiican liasxaabih war qur'aanka akhriya maalinta yowma alqiyaama qur'aankan masaaxifta ku qoran ee xuruufta ah isagoo muuqaal leh oo hadlaya oo muuqaal leh buu aakhira isa soo taagi doonaa markaasuu odhanayaa ilaahayow addoonkaa adduunka intuu joogay anuu igu mashquulay maruu i baranayo maruu dadka barayo maruu kugu cibaada ahaan ii akhrin jiray intaba maanta anaa haysta ergakaagaa ilaahu ii sii daa ilaahu maanta ii sii daa anaa ku baryaya rabbiyo kaasi nama dayicin ku noolaa baa la odhanaya qur-aanku odhan doonaa marka aakhira dad rumaysanoo islaamana waynu nahay arrintaa nabigaan inooga sheekay sal alla alay slam isagoo suuratu lbaqara iyo aali cimraan ay qur-aanka hogaaminayaan suuradihii kale ay daba socdaan bay aakhira iman doonaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wallaahi waa arki doonnaa billahi alcadiim waa arki doonnaa waxaa la rabaa marka maalintaasi qur'aanka inuu xujo kugu noqonin ee adiga uu xujo kugu noqdo abwaabta khayraadka waxaa ka mid ah qur'aanka barashadiisa ayaa ka mid ah qur'aanka barashadiisu dadka qaar baa waxay u haystaan in ay tahay maxay codka keliya oo isagoon tajwiidba aan garanaynin buu cajalada meelaha ka dhegaysanayaa markaasuu u haystaa inay tahay mid baa af carabiga inuu baxsan yahay laga yaabo wuxuu rabaa inuu qur'aanka keligii macallin aan isbaro waxay yidhahdeen mid baa qur'aanka anaa isbaraya yidhi macallin uma baxni dabeetana kor buu ka soo bilaabayo aliflaamimyaduu soo maray alamtaruu soo gaaray alamtaru wuxuu u qaatay tii hore ku socodsii aliflaam tara kayfa facala rabbuka aliflaamimyadiibuu ku socday moogta aliflaamiim iyo aliflaamiim raa'i buu soo socday aliflaam alamtaradii alif iyo laam iyo miim iyo tara way sooma aliflaamiim tara kayfa facala rabbuka
من كان كتابه شيخه كان خطأه أكثر من ثوابه قفك كتاب كيس الشيخ النقضه قف كيس محوك بضانية سحيسة كبضانية إنه قرفك قرآن كبرته ومعلمين قرآن كإلهي أفرغي إلهي بفرق قرآن كأفرغي إنه قفك كبرته واللسان كيس قرآن كصحوه ويان خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحايدين كو خير بدن قفك قرآن كبرتي أودت كبري أهل القرآن أهل الله وخاصته dadka quraanka yaqaan ehelka waa dadkii ilaahayna u go'ay u gaarka ah nabiga kaleey salaatu wasalaam iska ilaalin ahlu quraan ha ka daba hadlin inagu Soomaaliya iska daba hadalna moogta waa isxamanaa waa isxaasidna ha xaasidin ha ka daba hadlin ha juqaynin warmaha malaa'ikta ku dhacaya wallahi warmihi malaa'ikta intay ku dhacaan meel martay lagu arki ma adduunka iyo aakhirada hadhow caawaranaysa xagee liga gaare waa iska fiicnaaye dayaay ku yiri isku taataaba awliyada ilaahay adiga isku taataabiya ku yiri iska hubi marka waxa kamida albaabta khayrka salaanta kamida inaga da salaanti wala fiican dadku salaamayaan laakiin hadana maalmahan dama sidii hore ma hay iska waran seelay hay ma la fiican assalaamu alaykum ta horeysa marka hore iska waran ma la fiican waxa doontaa dhow ku hadal af ingiriisi af Soomaali af Carabi laakiin marka hore assalaamu alaykum ana tiraahdo wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha halka macna weyn ba ku jira dadka marka aad ladin salaama ilaahay subhanahu wa ta'ala salaanta intu qofku ku yiri in la mid ah مثلا wuxuu ku yiri assalaamu alaykum rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah ama intu ku yiri kabadi wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh laakiin in ka yar hadhihin mujeeda in ka yarna tiraadid waa khalad weeyaan taas waa khalad marka assalaamu alaykum salaamun alaykum salaaman inta waa isku salaami karaa wakaas رسول صلى الله عليه وسلم حديث كلا وحول إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام دنبيدا وحيابها إلهي وكلها فواجبية وحاكمدا سلامة بحين تيدي بدين تيدا إيه هذا الكون أكسن وضدك الله الله كميدا حديث سنة كيس مقال كتشرا وحوليه هاي رسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا ما jiraan laba qof oo intay kulmaan oo muslimiina isgacan qaadaya haday isgacan qaadaan ilaahay dambigooda waa dhaafaa xadiis kale jira isagu saxiix ba ah markay isgacan qaadaan muslimiintu labadooda gacmood inta u dhaxaysa dambigu saa uga hoobanayo maxaan ku uga daadanaya dambigii marka ay galeen xadiis kale jira sanadkiisa maqaal ku jiro man badaa bil kalaami qabla salaami fala tujibu qofka hadal bilaaba salaanta ka hor ha u jawaabina هو جوادنا كأمصوي منه مرك آداب تسلانته إن لبرتوا شيء مهم وعكم إذا أبواب تخيرك المحبة لله في الله إلهي درتين لسوتش على هذا وحياوها كلا ساحيب كالدنيا وسكجوية الأخلاء بعضهم لبعض يومئذ بعضهم لبعض عدو ذات كان أدون كصاحب هذا كوا قاركود غار كلا آخر عليا عداو داهي جوي بين قنيان ذات كإلهي كعب سبحانه وتعالى مرك إلهي درتي أول لسوتش على هذا أول لسحريريو ويان ومعان كل هذا إلهي درتي سبحانه وتعالى ضدكو أي ولا النقدان رسولك صلوات الله وسلامه عليه وحوت المامي إن الله تعالى يقول يوم القيامة ألا وحو أرندونا ما أنت يوم القيامة أين المتحابين بجلالي ما يكواني وين كي قدرتي سوتش على اليوم أظلهم في ذلي يوم لا ذل إلا ذلي ما أنت نهرين يا هركيغا رواية كلا شيكتو وعرشك هركيسا إلهي وهرين دونا مالين آن هرشرين بو نبي قولي صلوات الله وسلامه عليه حديث كاينو كورمي أبواب تأجرك وحاكم إذا زيابة المريض قفك بكاء الله صوب وغضو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلما مريضا ما تشير قف مسلم أو قف مسلم بكاء صوب وغنيا أرور قلن هراء إلا هدو صوب وغضو وحاود دعيو إلهي دن بداف ويديه تضباطا كن أو ملك انت وقلبتي كغاري هدي كل لابتو قلن كدنبانا تضباطا كن أو ملك با ادعينيسو إلهي دن بداف ويدينيسا انتو واغو كبريو وكان له خريف في الجنة جنتنا دي وحكولي دوغ يا برواقية خير متكو دحسو غنبو نقونيا حقوق دا اللي اسكولي هي باي كمي تحي وما انت آخرو حتى إلهي وكدودي دونو ضدك والله اللي دونو يا ابن آدم مريضت فلم تعدني إن آذن وان حنون صدى إمادا صوب وقنب إلهي آخرك أورانيا إله سيكو صوب وقدا رب العالمين باتهاي أدون كي هبل با حنون صدى هداد صوب وقن لهيد
lawajadta dalika cindii arrintaa abaalgudkeeda agteedaad ka heli lahayd. ibni aadamoo waan harraaday imaadan waraabin, ilaahu see kuu waraabiya, rabbulcaalamiin baa tahay, addoonkaygii baad harraadayoo biyo ma aadan siinin, haddaad siin lahayd abaalgudkeeda waa iga heli lahayd. addoonkaygiiow waan baahday, waxba imaadan siin, see ilaahu kuu quudiyaa, adaa wax quudiya rabbulcaalamiin ah. addoonkaygii baa baahnaayood maqashay, waxba maadan siin, haddaad siin lahayd abaalka waan ku siin lahaa ajarkeeda. ibni aadanow waan dharkii baa iga dhammaaday, waan arraday, imaadan arrad bixin, sidee ilaahu kuu arrad bixiyaa, adaa rabbulcaalamiina. addoonkaygiioo dharkii ka dhammaadeen baad ogaatay ood maqashay ama ku weydiistay, ma aadan u gadin, ma aadan arrad bixin, haddaa u samayn lahayd abaal markeeda agteedaad ka heli lahayd buu alla odhanaya subxaanahu watacaala. marka in xuquuqda muslimiintu isku leeyihiin in la fahmo abwaabta khayrka ka mid ah. abwaabta khayrka waxaa ka mid ah musaacadatu nnaasi fi dayn, dadka in deynta lagu saacido, bimacnaa qofku hadduu daymoobo in deynkii laga bixiyo. man yasara calaa mucsirin, qof deymaysan oo deyni cuslaysay qofka u fudaydiya, wuu ku lahaa waa ka saamaxay ama waaba ka bixiyey iyadoo lagu leeyahay, yasara allahu calayhi fi dunya waalaakhira, if iyo aakhiraba ilaahay baa u sahlaya. xadiid kale wuxuu tilmaamay nebigu sal alay alay waslam qofka dayn leh oo qof ku leh muddana dayn ku leh, muddadaa uu daynka ku leeyahay ee uu ka sugayo sanad hadday tahay, bilo hadday tahay, intaa uu daymiyey in la mid ah ayaa ilaahay agtii u qormaysa subax kasta inuu sadaqaysta. kun shilin buu ku daymiyey, 10 kun buu ku daymiyey, intaa qofkan aad daymisay subax walba ilaahay agtii iyadoo sadaqaa bay kugu dhacaysaa, kownka ilaahay bay kugu dhacaysaa. haddii muddadii uu ku bixin waayo aad u kordhiso buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam, laban laabkeed maalin kasta adoo sadaqaystay baa akownka ilaahay kugu dhacaya subxaana wa tacala. haddii lacagtaada un cafi laguma dhin way kuu taallaa. usugiddaad u sugaysa bas ah iyo jaaniska aad walaalkaaga muslimka ee deyntii ku siin waaya aad u sugayso keli ah baa ilaahay wuxuu kaaga dhigay intaad ku leedahay laban laabkeed inaad maalin walba sadaqaysanayso. ma ujeedaa? waxay ka mid tahay waxyaabaha inay ganacsatadu fahanto la rabo. ina atujaara hum lfujaaru yowma alqiyaama buu nebigu yidhi. ganacsatadu aakhiro kuwa dembiye waaweyn bay noqon doonaan ilaa qofkii alla ka cabsaday oo wuxuu iibinaya run ka sheegay oo xalaasha iyo alla ka cabsiga ku ganacsaday mooyaane, kii kale aakhiro waa loo baqaya. micnu waa saas. waxaa ka mid a abwaabta khayrka assatru cala annaas, dadka in la asturo oo dadka ceebahooda aan laga baayac mushtarin ayaa ka mid ah. laa yasturu cabdun cabdan fi dunya ilaa satarahu allahu yowma alqiyaama. qof ma asturo adduunka, hadduu asturo ilaahay baa aakhira asturaya subxaanahu wa tacaala. dadka qaar baa waxay dhaqan u tahay dadka ceebihiisa inuu ka shaqeeya. hebel ma taqaana, hebel wuxuu sameeyey, heblaay wax kale ka shaqayn maayo. soomaalidu waxay tiraa isuma jeedaa islaan laayey, isaga isma arko ummadna ma reebinba. haddii isaga la waraysto ama laga warramana xaaladiisu khatar bay ahaan lahayd. qofka qof muslim ceebihiisa dabagelaya, ilaahay baa intuu adna taada dabagalo aqalkaaga gudihiisa kugu ceebanaya suuqa iyo bannaanka intaan la gaadhinba. maxaa marka adiga dadkan muslimiinta ilaahay abuurtay, horta dad iyo muslimiinta mid inaynu fahanno waa shay muhiim ah. dadkan muslimkii alla abuurtay ee arladan dusheeda jooga, war waxaad isweydiisaa adigu maadan abuuran, ilaahay baa abuurto ifka keenay, mana arsaaqdid adigu, ilaahay baa risiqiisay cunaan, korkaaga kuma socdaana dusha kaama saarna, dhulkaa ilaahay bay maxaan ku idhaahdaa dul saaran yihiin oo ku nool yihiin oo ka shaqaysan risiqooda kala soo baxaan. maxaa adiga dadka muslimiinta kugu salliday marka? ma iska dhaaftid? soomaalidu wuxuu ku leeyahay aniga hebel qofka la yidhaahdo jinkaygaa neceb buu ku leeyahay. war jinkan baata dadka ugu diraya waa maxay? qof aan dhiig iyo dhaqaale midna dhiig iyo dhaqan kaaga maqnayn buu ku leeyahay hebel aniga waa ka dhex arkaniy oo muxuu kugu sameeyey? waaba iska nacaba haba oo maxaad ku nacabtuu ku yeele? ma dhiig buu kaa gale? ma dhaqankaagu wax yeele? maya niyo soo qofaa iska nacday ma jiro. haa waa iska nacay buu ku leeyahay. cajaa'ib. waa isuma jeedaa islaan laayay. maxaad ku nici? isweydiiyo maadaa abuurtay, maadaa arsaaqa, ma korkaagu saaran yahay, ma risiqaagu cunaa, dhulka ilaahay buu ku socdaa. ilaahay ummaddiisa u nabadgeli, afkaaga iyo adinkaaga ummaddaa muslimkaa ka nabad gasho. hal qaacidana waan kuu sheegaya, weligaa haddaa rabta inaad badbaadi qaacidada qaado. qof muslim ah haddii aadan tala wanaagsan oo adduunkiisa uu ku meelmaraya aadan u sheegayn, tamaraad ku dhaanto oo dhaqaalo ahna aadan siinaynin, afkaaga iyo adinkaaga ka nabad galo. waxba tari maysi soo maaha. af iyo maal wax ma ka taraysa? maya. nabadgelya sii marka, dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa iyo dadkiisa iyo dunyadiisa u nabadgeli, ha kaa nabad galo.
arsaaqka marhaba adig albaabkaaga soo garaaci maayo subax walba ka ilaahay buu garaacaya ilaahay baa siinaya wax subxaanahu wa tacaala dadka muslimku hadday saa fahmi lahaayeen mudwa kale nabadgeli lahayd laakiin soomaali baan nahay oo innagaa kabaheenna iscunayna iscalaashanayna waxaan hore ugu marlayna waxaas wey waxaa ka mid ah abwaabta khayrka silatu raxim riximka xidhiidhintiisa fuqahadu marka ka hadlaya waxay riximku waa saddex qaybood oo rixim caam ah baa jira oo dad aad rixim tihiin oo caam ah qofka riximka caamka ahi waa qofka mu'minka ah iimaanku idinka dhexeeyo gacal baa tihiin walaala ah gacalnimada walaalnimada ah ayaa waxay keenaysaa rixim inaad tihiin iminka masaajidka waynu ku tukannaa dad baa kacayoo baahan oo imanayo dawarsanaya wax weydiisanaya dadkani maxay u imanayaan meesha riximnimo diimeed baa naga dhexaysa fahan riximnimo diimeed iyo iimaan baa naga dhexeeya rixim caama kaa la yidhaahdaa riximkaas waxaa jira rixim kaloo ku xigo oo waxaa la yidhaahdaa rixim khaas ah riximka khaaska ahna waa qofkaad qaraabada tihiin ama xagga hooyuu ka soo jeedaa ama xaggan kale ayuu ka soo jeedaa riximka kale waxa weeye waa rixim qariib ah qariib baa loo jeeda mid kugu dhow baa loo jeedaa waa qofkaan muslimka ahayn ee gaalkii ah ama daris baatiin ama shaqaa ka wada shaqaysan xuquuq baa idinka dhaxaysa xuquuqda in la ilaaliyo diintu waxyaabay u timi bay ka mid tahay rasuulku sal alay slam wuxuu leeyahay alraximu mucallaqatun bilcarshi maalinta riximku carshigu saa u haystaa ay ku dhegan tahay markaase maxay leedahay ilaahu qofkii i xidhiidhiya xidhiidhi qofkii gooyana ilaahayow goo marka riximka oo la xidhiiriyo rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam qofka raba ama jecel ama ku farxaya in cimrigiisa ilaahay u dheereeyo u barakeeyo arsaaqdana alla u waasiciyo qaraabada ha xidhiiriya buu nabigu yiri alayhi salaam waa laba shay aan rabnaba hore inaan u dhimanana ma rabno inaan sii joogno aan rabnaa xoolo badan inaan helnana waa rabnaa soo maaha haddee see ku helaysaa qaraabada xidhiiri wax sii risiqana waa kuu barakoobayaa xaggan kalena cimriga waa kuu barakoobaya waxaa ka mid ah xusnu lkhuluq albaabta khayrka ah akhlaaqda wanaagsan baa ka mid ah maxaan ku idhahdaa akhlaaqda wanaagsan rasuulka markii la weydiiyey sal allahu alayh wasalam dadka maxaa ugu fara badan oo ay jannada ku galaan wuxuu rasuulku ku jawaabay taqwa allahi wa xusnu lkhuluq alla ka cabsi iyo akhlaaq wanaag buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuu ku ducaysan jiray allahu ilaah waxaan ku weydiisanayaa inaad akhlaaqdeeda mid wanaagsan ka dhigto akhlaaqda wanaagsan baan ku weydiisanayaa iyo wixii ii dhoweynaya akhlaaqda xun baan ilaahu kaa migan gelaya buu nebigu oran jiray sal alay slam waxaa ka mid ah abwaabta khayrka iyo ajarka lagu helo runtaa ka mid ah asidqu tunja sidqu waa badbaado weeyaan sidqiga natiijada laga helo waa badbaado calaykum bisidq faina asidqa yahdi ila albir waina albira yahdi ila aljanna waa runta ogaadoo laazima runtuu qofka wanaagoo dhan bay ku hanuunisaa wanaaggana qofka jannuu ku hanuuniyaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam si sariican ugu dulmaraya waqtigaa iska dhow waxaa ka mid a kadmu lghayd cadhada oo qofka uu qariyo cadhadaada markaad qof ka cadhootid inaad iska liqdid oo iska saamaxdid abwaabta khayrkay ka mid tahay laakiin soomaalidu maxay tidhaahdaa war qofka waa isku gubaabinayaan war iska dhici baa laleeyahay uurka hooyadaa markaa jirtay meel lagugu ciile adduunka maxaa isugu ciilisa ninka iska dhici baa laleeyahay shan farood ninkaani kaa reebin bay leeyahay sharci kaama reebo waa ummad wada dagaal socota ah saamaxaad iyo cafis iyo dhimrin iyo waa ku yar tahay marka inaad adoo qof ka cadhooday ama uu kaa cadhaysiiyey ka aargudan karaa ficil iyo qowlba inaad iska saamaxdo faraha ka qaadid cadhadaadii liqdid waxay ka mid tahay abwaabta khayrka ka mid tahay man kadama haydan wa huwa qaadirun calaa an yunafidah qofka cadhadiisa qariya isagoo awooda inuu fuliyo oo qofkii wax u geystay uu ka aarguto dacaahu allahu calaa ru'uusi alkhalaa'iq dadku markay saa u tuban yihiin maalinta aakhiro halkaasaa ilaahay uga dhawaaqaya hebel hebelow baa la odhanayaa xataa yukhayirahu min alxuuri alciini maa shaa ilaa ilaahay uu dooransiiyo markaas xurulciinta halkaa tuban ee jannada ka buuxdaa intaa doonto dooroo dareersaa la odhanaya adiga iyo kuwa fasaxanta haddaa aragtid 100 kaxayso 50 kaxayso 20 kaxayso waa kuu furanta bay abaalgudkaaga waka هذا وحي كجودن كذا قفك إن مركز القريد وسامح حديد أبى الجود كوين بعد كهليسا وحكم إذا أباب تخيرك كفارة المجلس مرك أنت ضد أنت بدنا فدك وديرك مقاحيها كشكاية من إنه وضم هذا قارن تيجي وحنكو أركي مقاحيها شاه لقعب كراسي بالملبا تاجني ما لقعب يا شاه ده سومالي بأن هاي ميلان فريسنا يوم ما تشتمي عن كربايا شاه تاجني ما لقعب بابلير وأمت شقة دودي دنتو ده خيسته إنه ما أنتو دن مقاحيا لقى شكينية واحد إنه كشاني توان واحد لقى شقيني
kulligeen siyaasiyiin baan nahay bahasha siyaasadda la kala shaandheynayaayo وكاس ولا كوذا صغير كبير إسلامي أو ذا مقاحدة شو بس إسلام تأه يكشها عبي على وضع سياسيين ولا شيء كان يا باشا ميد ولا وضع مركو هذا فردي جساء بتصنّه رسولك صلى الله عليه وسلم صحابته وحكيري إسكدايا وضدات فردي سنة رسولك إلهي كمان ما أرمي كرنيه ده وأقول شيء كيسنا ماشي ويسقوني معنا هذا إذا كم أرمي كرين جدك حقي سيئة حقي سمحوي هاي بالنبي صلى الله عليه وسلم هرت عندها الله بالليري ماشي الضمر بامرية dumar baa maraya wali dadkiina halkan jooga kuwa dayacan oo gaalahana meesha waa marayaan kuwa basar laho muslimiin oo fiican oo xijaabana meesha waa marayaan Soomaa haddaad meesha fadhido indhahaaga laabo ilaali hamoodin kuwan gaalada gaal way adaa fiirisa micna ma leesdihin sheekada ma jirto waa islaan haddaad fiirisa gaasha ah khatar way indhahaaga qalbigaaga ku dhacaya ta muslimkana lama ogola inaad indhahaaga laab salaantana أدي لدين سلامة كتشوابة ونبي صلى الله عليه وسلم وحدي بماشى كذا عيا وضدنا هلا جاي لالي هلا جاي عليو وناقنا هلا شجر سوق لي صلوات الله والسلام عليه مركي ماشى الله فرديو إن أذكرت الآخرية ولا أقسم مركي لقى كعيو نبي صلى الله عليه وسلم عليه مركو مال هذا قالوا فردي استو كعيو وحورن شري الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هديك لما نلت يوم القيامة فردي قاسي ولا جو قرية قوم ما يش الله يطو أيوه كون نقندنا وحي ماشى كذا عي ويأذو ده لما سعتيت ماشان وحا كدعيا ويان نين صحابي او عكور رسولك الله يو انك لا تقول قولا ما كنت تقوله markaad ka kacayso fadhiyada nala fadhido hadalaadan hore u oran jirin ba hadda tiraahdaay hadalkaasi muxuu yahay markaas nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri wa kafaratul majlis waxaan iraahdaa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk saasan iraahdaa marka meel fadhisataan walaalayaal oo cabaar ku shahdaan oo ku sheekaysataan أذكارتي يوردي جنا ودح راعية فردي أنت فردان مركا كعيسنا أذكارت آخرية سي آخره فردي قال لي ننقب سنة صبر كم دي دلقاتك أبواب تخيرك صبر كوا صدح نوع جودهان كرمك الله جايجو قفكوا إنه إله عبادة سكسمره عبادته صبر بأبا أنت قرآن كتكير كيسا فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية إلهي محولي فاعبده ألا عابد ما كسام حال لقول حيري لي هدنا واصطبر لعبادته إلهي عبادة كسمر وعباده حبها أنت اللي قبص الشوء كسمر قفك إمين كصلاة بلا مساج كسوق لا هرو سوق لي تشرين ما كنت سوق لا سنة استو صلاة كذا متكلم وسوقيه شيطان قول كورما يا ضدك نوع كوجين هذا كفيرنا يعني مرة بضعوا فيرنا يا شيطان قال له واحد كوجي كينا إيه سو ما يدينا سكر هذا دين فهنسي أنا معلم بانا هاي ناف أري هذا سوق كسو إيبس سيلدا أري قال له كذا ده تينا نور ما هي تصوماليا سالدي يكادي يحدم بيا لصومه كل سيلدي واسكو سيلدهم بيلتها مركا ناف كهالك سالدا يكادي دا يوحى مركو كل حجرو وحى سكده حجرايو ما أنت ما قيلينيه marka neefkii soo iibsato aqalka keento oo aad aqalkii meel kamid ah ama geed ama daaqad ku xidhid meel shamiinda oo sibir oo nadiif ah oo saakaba wax kasta la dhaqayo la masaxayo neefkaasi maanta dhan waa ciya marba dacwo isu dhufanaya marba dacwo isu ma fadhiisanayo ma istaagayo muxuu rabaa u qeylinayaa saaladii iyo kaadidii iyo qashinkii buu rabaa Soomaa laakiin markuu maalin joogo maalinta dambe oo cawska iyo biyaha diido uu fadhiisanaya maalinta dambe qayladu joojinaya maalinta labaad fadhigu wax ku cunaya maalinta saddexaad waa soo xasilaya maalinta afraad marabi buu noqonaya caadi aqalku la qabsanayaaba mujeda marka qofku cibaadada samir bay u baahantay la qabsi quraan akhriska qiyaamul leylka jamaca ku tukashadiisa masaajidka ku nagaanshihiisu waxa u baahantay la qabsi in lagu dasbiyo marka as-sabru ala ta'ati iyo as-sabru 'anil maharim yaabaha ilaahay ka xarimin inaad ka samirtid iyo ka saddexaad oo ah as-sabru ala aqdaari illah ilaahay qadarkii ina ku sabirti subhanahu wa ta'ala culimadu waxay ka hadleen saddexda kay ugu daran baa leeyahay waxa ugu daran qofku inuu xaaraanta ka sabro cibaadada waa ku samri kartaa qadarkana waa ku samri kartaa laakiin shayga ugu daran iimaanka u baahani qofku waa inuu wixii laga xarimay ka sabro u fiirso quraanka waxyaabaha mararka qaar kood waxa dhici karta wixii laga xarimay in lagu soo furo baa dhici karta oo ilaahay ku fiirinayo bal ina waxaan ku dhaxdaadatid iyo ina alla ka cabsatid مثال ذلك إلى قرآن وحكر يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم هتكون مؤمنين تأهو وقاد هدلنا وقاد سنين إذنكو حج حرما وحجاج أو معتمرين إسكتش لالي سيدي مركا أرنتي النقطي
cumraa loo soo baxay saxaabadu waa soo tageen cumray soo baxeen rasuulka ilaahi sallallahu alayhi wasallam markay madiina ka soo anbabaxeen oo soo baxeen ugaadhii ku jirtay ayda iyo duurka ku jirtay geerigii iyo sagaaradii iyo biciidkii iyo deeradii iyo waa la soo saaray markaasaa fardahoodii iyo awrtoodii basaa u dhex maraysaa waa baashii shabaqa loo dhigan jiray maanta dhan lagu maqnaan jiray markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay tanaaluhu aydiikum wa rimaaxukum maxaa ka dambeeya liyaclama allahu man yakhaafuhu bilghayb ugaadhi laydiin diiday waa tanaa ninkii warankiisa sidaa dhaha waa ku mudi karaa kii aan warankaba la soo bixinee soo qaba is yidhaahdana surkuu soo qaban karaa bahashii maxaa saa loo yeelayaa bal ilaahay wuxuu eegayaa qofka ka cabsanaya qofka kale ila horaa lagu yidhi ha ugaarsanay adoo xaaji ah soo maaha ama cumraysanaya marka in qofku uu fahmo waxyaabaha xaaraanta mararka qaarkood waa lagu fudaydinaya adigoo lagu eegaya bal inaan waxaan ku daadatid in kale lagu eegayo waayahay saddexda waxa waa muxaramaadkood laga sabro rasuulku sallallahu alayhi wasallam ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وحا مسلم ككل عيا قضح مدي بقى يرحتا قضح مدي مسمار يروك مدي بر يروك حاجتي وحي يروك يرحتا هدو غفك كسمرو إلهي دم بداف بكسينا من النبي صلى الله عليه وسلم واي رسول صلى الله عليه وسلم جهاد كجرا بودغخ فرتا كدفتو سولكاسا دي كيميد ان انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي ونبي يقول حسن wax kalamatihide fardii ka yimid baa too dhagax ku dhacay jidka ilaahay baad ku jirtaaye iska adkayso nabiga sallallahu alayhi wasallam marka hadii dhagax yar aad inta darbaysid wax yar ku gaaraan citaa ajir baad ka helaysaa abwaabta khayrka waxa kamida birrul waalidayn labada waalid loo ihsaan falo waalidku waa cadiim xaqis wa bil waalidayn ihsana والدك وإحسان فلا إلا الله سبحانه وتعالى الإحسان بالوالدين علماء waxay ku ururiyeen الإحسان بالقول هذا الكاغا والد كان ugu إحسان fasho وهذا الفيعن أبها iyo hooyada haday joogan kula hadashid الإحسان بالفعل فعل كاغا والدك inaad ugu إحسان fasho si wanaagsan ugu khidmayso الإحسان بالمال مال كاغا والدك inaad si fiican wax uga siiso marka baabkiisu leeyahay bir waalideynkiye waxaan ku ururinaynaa qofku hadii uu rabo adduunka nolol fiican inaa ku noolaatid aakhirana meel wacan inaa tagtid waalidka u ihsaan fal abwaabta khayrka waxa kamid ah in agoomaha iyo garoobada iyo dadka waxba haysan masaakiinta iyo kuwa goblanka ah ee caruurta aan lahayn in la saacido oo wax la siiyo ayaa kamid ah as-sa'i 'ala al-armala wal miskin kal mujahidi fi sabilillah qofka macaan ku yiraahdo wa kal qaa'imi la yaftur wa kas saa'imi la yuftir wuxuu la mid yahay qofka agoonta iyo masaakiinta iyo dumarka rag ka dhinteen garoobta ah caawinaya ee wax siinaya qof wuxuu la mid yahay fi sabilillah ku jira jihaad oo kale wuxuu la mid yahay qof taagan oo aan salaad u taagan oo aan daalayn ama soomano aan afurin buu la mid yahay insha Allah bismillahir rahmanir rahim abwaabta soo ururayna waxa kamida abwaabta khayraadka iyo mukaffiraadka dhunubta waxa kamida kafalatul yatim in agoonka la kafaala qaado oo agoonta aabihiisii uu jeclaaba ka dhintay aaba ma haysto in marka muslimiintu ay aaba u noqdaan oo maalkooda wax ka siiyaan haduu baahan yahay la soo dhaweeyo rasuulku sallallahu alayhi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati ka hada aniga iyo qofka agoonka kafaala qaada jannadu saasoo kale aan ku nahay inta yar ee fartaa ka sareyso baan ka sareeya nabiga sallallahu alayhi wasallam hadiiska bukhari ninkii saxaabiga ahaa ee nabiga u yimid xadiiska Abi Darda uu ku yiri ma jeceshahay qalbigaagu inuu noqdo qalbi jilicsan muraadkaaga iyo xaajadaada aad hesho ma jeceshay buu nabiga sallallahu alayhi wasallam markaasuu yiri ha waan jecel rasuulka ilaahay talooyin buu nabigu siiyay marka wuxuu ku yiri irhamil yatiima wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amik yalin qalbuk wa tudrik hajatak mujada agoonka u naxariiso madaxana u salaaxo soo dhawee waxaad cunayso wax ka sii qalbigaagu qalbi jilicsan buu noqonayaa muraadkaagana waad helaysaa buu nabigu alayhi salaatu wasalaam waxa kamida waxyaabaha abwaabta khayraadka waysa qabka inuu qofku hadiya gooraale waysa qabo ayaa fiican xitaa aqalkaaga marka ka soo baxayso waysayso hadaa musqul gashid ka soo baxdid waysayso waysada ma ilaaliyo qof aan mu'min ahayn buu nabigu alayhi salaatu wasalaam qofka weysaysta ee weysadiisa hagaajiya
dembigu waa ka daadanayaa biyuhu raacayaa buu nebigu sal allahu alayh waali wasalam xitaa cidiyaha hoostooda baa dembigu ka daadanayaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ma ujeeda marka man tawada'a fa axsana alwuduu'a qofka weysaystee weysada hagaajiya dabeetana masaajidkii yimaada dadkiiyo jamicii tukaday masaajidkiis yimaadoo soo gala rasuulku wuxuu sal alay wasallam acطaahu allahu midla ajri man sallaaha wa xadaraha ilaahay wuxuu siinayaa sida qof ajarkiisii salaadii jamaca la tukaday ajarkiisii oo kale oo xaadiray ayaa la siinayaa ma ujeeda laa yunqasu dalika min ajrihi shay'a waxba ajirkiisa alla ka nuqsaamin maayo rasuulku leeyahay salawaatu llahi wasalaamu caleyh hadii saxiixa weeye abu daawud iyo nasa'i baa soo saaray waxaa ka mid ah ducada ka dambaysa weysada in la akhriyo أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إن دعاء أنا قفكم أن كتجين أبواب وحكمت خيراتك نسأل الله يجعلنا من أهل الجنة وحكمت أبواب خيراتك أدنك أيا كمدة قفكم إنه أدموه أدنك وحكاه الرئيس قفكم ألفاظ أدنك جراني أيا كه الرئيس إن هديك لو قفك أف صومالي بكو أدمية ما نبغى عن مغلين أدمية يوله أشهد أن محمد رسول الله مكا نبي الله محمد أدين كيو أدين مكت أشهد أن محمد رسول الله إنه قف يريد مدة مركا رسول كيو تاجن إنه يريد مدة أشهد أن محمدا رسول الله وي هل كافي تنوين بلاده ومركا محمد رسول الله تعالى ما هي وقلت أشهد أن محمدا رسول الله وي أدين كصحراء marka hadii qofka aanu garanayna Soomaalina iyo Soomaaliyan iyo Soomaa saad qofka aan sheegay ashhadu anna Muhammadur rasuulullah inuu yeeray nabiga sallallahu alayhi wa sallam marka waxay kamid tahay ducooyinka qofkii yiraahdo adinka dabadiisa Allahumma rabb qadi da'wati tama wa salatin qa'ima aati Muhammadan alwasilata wal fadila wa darajata al-'aliya wab'athu maqam mahmud alladhi wa'adta ajr weyn ba maanta min qiyaamah shafaa'ada nabiga helay sallallahu alayhi wa sallam bal rasuulka xadiidka Anas wuxuu sheegay maalinta aakhiro ilaahay inuu oran doono khalaa'iqdu markay isu yimaadaan ayna jiiraani meeye dadkii aniga dariska ila ahaa dadkii jiiraankayga ahaa aaway malaa'igta dhahaysa waa ayo qofka mudan inuu daris kula noqdo adiga ayna umaarul masaajid dadka masaajidda camiri jiray baa raba aaway iyo soo saara dadkaas baa ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala umaarul masaajid ama ta'miirul masjid fuqahadu markay ka hadlayaan waxay leeyihiin saddex qodob bay ku ururaysaa بالبناء وبالعلم وبالعبادة إن اسمه مساجد اللي عمره بالبناء اسمه وبالعلم علم المساجد اللي عمره خطبته إيه دروسته إيه محاضرات وعلم مساجد اللي عمره إيه وبالعبادة عبادة إن اللي عمره تعمير كمساجد كواكاس علمي إيه عبادة إيه نسيد إيه ضيعتري نظافة إن اللي عمره مساجد وعكم إذا مساجد اسمه ده حيابها الله هليه qofkii masaajid ilaahay dartii wax ugu darsado dhisa jannada ilaahay masaajid buu uga dhisa waxa kamida masaajidka oo la aado salaadaha loo baxo wa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam qofka masaajidka u kallaha ama gelinka dambe aada markasto uu kallaho ama gelin dambe masaajidka u aado martiqaad ba ilaahay jannada ugu diyaarinaya ilaahay aktibu ka azumaya subhanahu wa ta'ala ma u jeeda nimankii ansaarta ahaa yiri rasuulka ilaahay aqalada waa naga fog yihiin ma soo dhawaana bani salima هي بني سلموا هل كنا دجنادا تلابدينا والذين قريا بالنبي يقول عليه الصلاة والسلام وحكم إذا أبواب تخير كي وناك سن مكفرات كعضيقة كم إذا إنه قفوا عضيته هذا مشاكلات كتيرة وحكم إذا ضدك أنت قاد كعنت الكود صرفتي يقاد كديك يبستي الكود لقضي وباب قارس كبرك هالكن كوان قيلين بالكي كدادنا يردنا مشكلتهم حيته مشكلة هذه اللي وصلوا دواد حوي Soomaali baynu nahay waxa aynu cunayno macaanka u badan cuntada aynu cunno macaan baa u badan qofku wuxuu cadayanayaa subax ka subax buu cadayanayaa maanta oo dhanna waxbuu cunayaa wuxuu cabaya ilkihii ciridkii wixii baa ku jira subax ka subax saasuu caawana 12 saacadood caawa ku sii jiifsanaya habeenkii isagoo juice cabay shaah cabay wax macaan sii cunay afkii ilkihii carabkii buuxaan buu ku seexanaya hadhow baa wixii intay isla xumaadaan ba ilkii ka daadanaya وإنه قفكو عضيدا صلاة كستلاتير كذا شافك عضي قوتا وإنه قفكو صبحي مكو توص عرب كي الكها يوحنا عضيدا وإن ظهر كي عصر كم كودا حيسفع الكها وعضيدا وإن هبين كي مركز سيحان يسو أنت هذا سيحان سفي عن عرب كاغا الكها الرمي النظيفي
xitaa bal tijaabiyo marka hadhow salaad subax usoo kacayso afkaaga ur badan ma leh waa nadiifba ilaa adoo nadiifa seexatay ilkahaagu oo dayactirmaya ilkahani waxyaabaha ugu adag ee lafta ah weeyaan dayactirmaya haddii kale adigoo wiil yar ah baa daamanku ku jabaya ilku kaa daadanaya aan lagu gaadhinba saa islaamu kaa cararayaan dee marka waxaa rabaa inaad ilkahaaga hagaajisatidoo cadiga ku dadaashid bal rasuulku sal lla alay slam wuxuu leeyahay haddaan ummadna dhiba aanan ka baqayn waxaan odhan lahaa salaad kasta markaad tukanaysaan ilkaha cadayga mariya ama mar kastoo aad weysaysataan ilkaha cadayga mariya shaaficiyada waxayba leeyihiin madhabu shaaficiya oo madhabtaynu soomaaliya ku dhaqantaa inu haysanna ay tahay haddii xitaa ramadaantu tahay gelinka hore unbaa la cadayan karaa laakiin gelinka dambe lama cadayan karo xadiidkii daar qudni bay deliishadaan idaa sumtum fastaaku lghadaata walaa tastaaku lcashiya haddaad soontaan oo soon ay tahay gelinka hore cadayda gelinka dambe ha cadayanina xadiidkaasi waa sariixun fi lmas'ala walaakin waa gayru saxiix masalada waa ku cad yahay laakiin saxiix maaha xadiidku waa daciifa weeyaan abwaabta khayrka waxaa ka mid ah salaada subax iyo salaada casar oo jamaca la ilaaliyo labadaa qofkii ilaaliya qabqabow waxaa weeye jannada ilaahay subxaana watacaala buu gelaya salaada jumcada ka mid ah abwaabta khayraadka ah qofku ganacsi buu ku jiraa shaquu ku jiraa maalinta jumcada walaalayaal maalmaha kale ha idinka socnaato goor hore oo subaxii hore 4 saac markay tahay masaajidka la soo galo ninka u dambeeya 4 saac iyo barba ha soo galo hadduu rabo masaajidka yaan lagaa masaajidka qofkii marka u horeysa yimaada neef geel inuu sadaqaysto lamidi waqtiga ku xiga qofka yimaada neef lo ah waqtiga ku xiga qofka yimaada wan weyn waqtiga ku xiga qofka yimaada digaagad qofka waqtiga ku xiga yimaada ukun intaasu lamid yahay marka adiga maalin kasta maxaa xabad ukuna sadaqadeeda kugu soo beegaya hal maalin isbiimeeyo hal sadaqayso neef geel ah subax hore masaajidka imow ma ujeedaa ka faa'iideyso malaa'igtu albaabaday taagantahay dadka soo gelaya magacyadoodii qoraysaa hebel 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 saacadaasu soo galay haddii mimbarka khadiibku soo fuulo warqadahana way isku laabanayaan buu nebigu yiri sal allahu alayh wasalam masaajidkana way soo gelayaan khudbadana way dhegaysanayaan saacadda u dambaysa jimcaha saacatulijaaba ku jirta in laga faa'iideysto asbaabaha khayrkay ka mid tahay abwaabta khayrka waxaa ka mid ah 12 rakacadood oo sunno ah oo rawaatib ah oo salaadaha shanta ku lifaaqan ama la socda laba salaada subax bay ka horeeyaan afarna duhurka marka la adimaa la tukadaa laba loo tukadaa marka duhurka la tukada ka bacdina laba laga dambaysiiya labana salaada maghrib bay ka dambeeyaan labana salaada cishay ka dambeeyaan 12 qofkii tukada ilaahay jannada guriga uga dhisaabay nabiga sallallahu alayhi wasallam raatib baa la yiraahdaa marka hadduu qofku laakiin safro oo musaafir yahay labada subaxa ka horeeya bas abu tukanaya inta kale wuu iska daynaya hadduu rasuulku safrana sallallahu alayhi wasallam kama tegi jirin salaadaha sunnooyinka labada salaada subax ka horeeya iyo salaada duxada ah iyo qiyaamul leylka nabigu kama tegi jirin calayhi salaatu wasalaam salaatu leylka ka mid ah abwaabta khayrka ayay ka mid tahay oo rasuulku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam oo quraankuna uu tilmaamay in qofku dambaad leedahay baahi adduun baad qabtaa baahi aakhiraad leedahay yaa ayuha annaasu antumul fuqaraa'u ila allah wallahu wal ghaniyyul hamiid salaatu leylku salaadaha shanta ah marka laga yimaado waa salaada ugu fadliga badan in marka habeenkii niska dambe inaad kacdido ilaahay samaa dunya markuu la hadlayo adoomihiisa wuxuu oranayaa man yad'uuni faastajiiba lah yaa ibaryayo ana jiiba yaa dambi dhaafi weydiisanayo aan dambigiisa dhaafa yaa waxay weydiisanayo aan siiya saacada kac baahi adduun baad leedahay baahi aakhiraad leedahay boqorka gacmaha u hoorso ilaahay bari subxaanahu wa tacaala dantaada u sheego baahidaada u sheego ilaahay waa kugu farxaya waa ku aqbalaya qiyaamu leyli sharafu lmu'min qiyaamu leylku waa qofka mu'minka sharafkiisa xitaa culimadu waxay tilmaamaan xadiidka laga fahmayaa qofka salaatuleylka tukanaya qofka kale isku weji maaha muuqaalkooda midna waa qurxoon yahay waa nuuraya midna waxbaa saaran ka sokeeya oo de hurdadii baa baabi'isay in marka qofku uu allah subxaanahu wa tacaala xilliga uga cabsado waxaa ka mid ah salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam abwaabta khayrka in qofku nebiga aad salligiisa u badiyo salawaatu ullahi wasalaamu calayhi nebigu wuxuu yidhi man sallaa calaya salaatan sala allahu calayhi biha 10 hal mar qofka igu salliya 10 jeer baa ilaahay ku salliyaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inaad marka maalintii 100 jeer 500 1,000 jeer intaad ku sallin karta nebiga ku salli sallallahu alayhi wasallam waxaan garanayaa nin odayahoo hadda waa dhinta allah u naxariistee neefta xanuunka la yidhahduu qabay sanawaad aad u badan aad buu ku tabcaami jiray neeftii baa alla ka kaxeeyey waxaan ku yidhi neeftii ku dhibi jirtay ilaa markii aan qaan gaaray ilaa anuu nin weyna neeftii wuu qabay muddo dan baa ilaahay ka kaxeeyey subxaanahu wa tacaala neeftii maxaa ilaahay kaaga kaxeeyey markaasuu gacanta isoo qabto kaale anaa kuu sheegayey adeero wuxuu yidhi salaada maqrib markaan tukado ilaa salaada cishe inta u dhaxaysa cidna lama hadlo meel baan fadhiistaa 1,000 jeer baa nebiga ku salliya calayhi salaatu wasalaam
markaasa ilaahu neefta iga kaxee baan idhaahdaa ilaahay neefta waa iga kaxeeyey buu yidhi ninkan sheekhay aad taqaanaan ee saalix almaghaamisi la yidhaahdo masaajidka quba imaamka ka ah waacidka ah sheekha ah mufasirka ah waa dhaweed waa la qalay dhakhtar baa la dhigay markii dhakhtarkii caloosha laga yar qalay dhakhtarkii baa la dhigay markii sariirtii la soo seexiyey qofka tuubooyin baa la geliyaa dhiigga iyo dheecaankii ka soo saara marka ugu horeysa la qalo tuubooyinkii baa caloosha ka soo qaadi waaya dhiigga iyo dheecaanka isagaa ka sheekaynaya aan ka dhegaysta anigu markaasaa dhakhtarkii baa loo sheegay dumarkii mumridaadka ama narsiska u sheegeen oo yidhaahdeen tuubooyinkii ma soo qaadayaan dhiig iyo wixii dhakhtarkii wuxuu yidhi camaliyaddii baa dib loogu celinaya wuxuu yidhi gabadh ka mid ahayd gabdhihii waadhka ka shaqaynaysay dhakhtarka ka shaqaynaysay baa soo agmartay oo waxay tidhi salli cala rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka salligiisa badi nabiga aada ugu salli sala alayhi wasalam wallaahi markay iga tagtay buu yidhi oo dhakhtarkii lagu maqnaa daqiiqaduu iga soo raagay dhowr iyo 10 daqiiqo 20 markii uu soo noqday mise tuubooyinkii saas u sii deynayaan dhicaankii dhiigii wixii baa wadaanba marka qofku ka salli badan yahay nabiga waa loo geenaya hebel rasuulka ilaahayow intaasoo jeer buu kugu soo salliyey baa la dhahayaa salawaatullahi wasalaamu calayh soo ayaan darra ma aha 24 saaco warkaaga la qaadinba oo nabigaana ku sallin sallallahu alayhi wa sallam faa'iida laga helay waxaa ka mid ah nabigu tilmaamay man salla calaya salaatan waahida 10 jeer baa alla ku salliya وحط عنه 10 خطيئات 10 دنبنا إلهي وكقضادية ورفعت له 10 درجات 8 درجنا إلهي واسيا سبحانه وتعالى صومك كمد مالمه سكل الدوان صومك صنها صدح بشي بصدح معمد إن لقى صومه رمضان تسون كذا أبواب خير كمدا لحد عشاء شوال كمدا صومك عرفة كمدا يوم عاشوراء صوم كذا كمدا قفك صوم من أفورنتي سا كمدا هبين ليلة القدر كل كذا كمدا هبين كوتشيرتو صدقة أي واحد بحنته هي ديق ذا كمدا ورسول صلى الله عليه وسلم وحيورن شري الصدقة تطفئ الخطيئة صدقات قفك يدم بيغفك دعوي دميسا كما تطفئ الماء النار صدبك بيه أدمي يوكله أسماء مركو لها اللي وحكور يا أسماء لا توكي فيوكي الله عليك أسماء ويل كاغا ديق دي صدقة يحبي حنته ها كاف حدين يا إلهي ديق دي سكاف حدين سومالي وحكومة ماذا نبا تشيري تشيري الله يدعو فارح بين ترصدي فارح بين ترصدي ما غانا مشي دي سمقاشينه ملادا ميلان في سومالي وابكو عرير بانو ملاينا ياي نينكاسي حوغا لعق وشقيست في عن kalkuleetar buu soo qaatay xisaab uu isku dhufsaday wuxuu yiri maxaa noolaan kartaa 7 sanadood baad noolaan kartaa خلاص 7 kaaga sanado intan waa kugu filanta yareeyso dheeligaagii foodkaaga waa kugu filanta yareeyso intiisiba isku farsamaystay 7 kiina waa dhamaaday lacagtina waa dhamaatay wiilna waa nooli qof uu waxsiiyeen hadii ma jirto waa nin la isla yaqaan buu ahaa maalinta dambe aqalada albaabkooda garaaci jirayo كوب مركوس يلا واكم وفارح بين ترسده وحيدي بوديشر وانك بين ترسده موجوده متكلم وحال اورنجري هبل فريند بالورنجري ودمداس قاعدو كوريو قف كسته وحو اورنجري ولالكي حتى ان اديركي مid kasta فريند بو اورنجري dadka فريند baan hay budii jiray subaxii dambe wixilinkii isku filnaysiin jiray cidna wax ma siin jirin aniga cidna xooga baan kaygaan cunaya budii jiray oo cidna wax ma siinay subaxii doon maqaaxii mid uu ka shaha aroorti waxaan idin sheegay bro friends waxaan idin sheegayaa friend shaahi saaka igu dambeeyay waxaan haystay wakaas wixii ka dambeeyay waa dhimanaya anigu aqalku tagay uu isdaldalay xarig buu qoorta gashaday in la iimaankiisii baa inkaar kaga dhacday marka faarax been tirsadeen ha noqonino waxaan inta isku dhufato xisaabo iyo bakhaaradan iyo lacagahana is oranayn waa ku dhex jiraysaa weligaay hal mar baa markab ka adeegi kara aduu rabe sadaqad iyo deeqdi wax bixinta in lagu dadaalo waa asbaabaha muhiimka ah ee qofku ku hagaagayo waxaa ka mid ah oo fara badan yihiin waqtiga igu yar ciriid ah inta aan ku daayo inta mawduuca ku talagalay waqti ay saamixi waayay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo min alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين